daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saara kumbeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay madaxweyne farmaajo oo la leeyahay fashalkii ugu dambeeyay ayuu ku dhacay kadib markii weerarkii SYL dadka shacabka Soomaaliyeed ee reer Muqdisho isweydiinaya 10 su'aalood haddaba qodobkaasi xasaasiga ah iyo guuldaradii farmaajo ayaa idin hayna daawadayaal hase ahaatee ahlu sunna wal jameeca oo heshiis culus la gaartay dowladda federaalka Soomaaliya muddooyinka u dambeysay xiisad halkaas ka taagneed madasha xisbiyada qaran oo digniin culus u soo saaray wasiirada uu hogaamiyay ra'iisul wasaare xasan cali khayre Mareykanka oo bogaadiyay heshiiska ahlu sunna wal jameeca iyo dowladda federaalka Soomaaliya qodobadaas ayaa maqlaysaan haddii kale aan ka horeyno qodobka ugu horeeya madaxweyne farmaajo oo fashil 3 sano kadib dhaxda kaga beegmay hase ahaatee waxaa leeyahay weerarkay SYL weerarka ku xiga wuxuu noqon doonaa fil Soomaaliya hase ahaatee qoraas sare ayaa falaqeynaya arrimaha amniga iyo fashilka madaxweyne farmaajo waxaa shacabka Soomaaliyeed ka sugayaan in looga jawaabo 10 su'aalood haddaba 10 su'aalood qodobka ka koowaad ayaa ah sidee al-shabaab ku yimaadeen hotel SYL oo madaxtooyada u jirta 100 tilaabo halkii aad shirka ku qabanaysay ama aseexanaysay labo maxaa isku soo beegay tirakoobka booliska oo 3 maalin kaliya ka socday command booliisiya iyo weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen madaxtooyada agteeda maxaa ka jira in hubkii al-shabaabkii la dilay ay shakhsiyaad qaateen si aan loo baarin shabaab in dowladda ku milmeen ayaa la sheegayaa adna waad sheegtay oo waxaa la yidhi adna waad sheegtay ma u qaadan karnaa in weerarkaani xubno dowladda ka tirsan ay fududeeyeen isla markaasina raalli aad ka tahay qodobka afraad tani waa qorshe cusub oo halis ah maxaa kaaga diyaarsan dowlad ahaanba khubarada amniga waxay sheegeen in ay halis ku jiraan hoteelada ka fog agagaarka ciidamada oo dhici karta in sidan oo kale la weeraro maxaa maanta iyo berri ama maalin kale ka qaban karta ama kaaga gudban ayaa la yiri madaxweynow waa qodobka lixaad mudane inaad al-shabaab 2 sano ku soo afjari doonto ayaa noo sheegtay waxaana ku bilaabanaya sanadkaagii afraad shabaabna madaxtooyadii ayay soo galayaan maxaa ku xal ah sidaas ugu hortagi doontaa xalay habeen hore ayay ahayd markii SYL oo 100 tilaabo ku jirto ay gudaha u soo galeen qodobka toddobaad mar haddii ay weeraro 3 sano kadib filla Soomaaliya ku soo socdaan ma u aragtaa inaad adiga halis ku jirto ama aad halkaasi ku waayi karta naftaada qodobka 8aad maxaa muuqato inaad ku guuldareysatay dhammaan baladqaadyadaadii aad samaysay ee waxaa rajo ka qabtaa inaad mar kale hogaamiso Soomaaliya haddii ay tahay jawaabtaada haa maxaa ku qaban kartaa aliyiri muddo kale haddii aadba hal xabo oo aad ka qaban waaysa ballanqaadyadii hore ee aad shacabka ka ballanqaaday adigoo muddo 3 sano ah joogay hase ahaatee taasi waxba soo kordhimayso qodobka 9aad shacabkii ku aaminay kugu farxay kuna hambalyeeyay 3 sano ka hor maanta ma ka warqabtaa oo xataa ma u tiicsiidaysay weerarkii ugu dambeeyay waxaa la yiri mayd kee u dambeeyay waxa u dambeeyay kii iminka dusha lagu sii wado meydkii u dambeeyay ee iminka hotel SYL ayaa u dambeeyay ma u tiicsiidaysay ma ka warqabtaa waa maya qodobka 10aad maalin waxaa fagaaro ka sheegtay inaad tahay rajadii ugu dambeysay ee shacabka Soomaaliyeed waa run way ahayd hadda rajadaasi ma qabaan shacabka ma ka warqabtaa mise waa ka rajo dhigtay ayuu yiri qoraalkani waxaa soo qoray qoraasale ee dhanka amniga falaqeeya siyaasin ah Xuseen Cabdullaahi Maxamed asigoona u gooni yahay dhinaca kale haddii aan eegno qodobka kale ahlu sunna wal jameeca iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo heshiis taariikhi gaaray isla markaasina galmudug la rajaynayeen iminka la dhiso wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in heshiis laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo ahlu sunna wal jameeca ku aadan arrimaha dhismaha maamul goboleedka oo muddadii u dambeysay halkaasi khilaafyo soo gaaray isla markaasina hakad geliyay dhammaan dhismihii iyo wada shaqayntii dowladda wada hadallo maalmihii la soo dhaafay u socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo hogaamiyaha ahlu sunna wal jameeca ayaa kama dambeystii waxaa saaka la gaaray heshiis buuxa iyadoo la xaliyay tabashooyinkii dhanka ahlu sunna iyo caqabadihii ku horgudmanaa geedi socodka dhismaha maamul goboleedka isla markaasina muddooyinka u dambeysay malaayiin doolar ku bixisay ahlu sunna ayaa loo oggolaaday in 20 kursi oo xildhibaanada oo qoondada baarlamaanka galmudug kaasoo ka imaanaya 89 kursi ee baarlamaanka la siiyay dowlad goboleedka galmudug waxaana gobolkan ahaan kan ugu weynaa ee ay waana qodobkii ugu weynaa ee ay isku hayeen dowladda federaalka iyo ahlu sunna wal jameeca maadaama ahlu sunna dalbanaysay in la siiyo 35 kursi oo qayb ka ahaa heshiiskii hore sidoo kale wasaaradda waxa ay sheegtay in arrintani la gaaray kadib wada hadallo u socday mudanayaasha
ama hadalyaasha u socday muddooyinkii lasoo dhaafay dowladda federaalk iyo ahlusunna waljamaaca, iyadoo qodobka ugu weyn ay isku hayeen labada dhinac ay ahayd arrinta xulista baarlamaanka iyo qoondada laga siinayo ahlusunna. heshiiskan ayaa lagu xusay in ay gacan ku geysteen odayaasha dhaqanka, ganacsatada, siyaasiyiinta ee shakhsiyaadka magaca leh ee kasoo jeeda deegaanada iyo beesha caalamka, oo ay wasaaradda sheegtay inay dadaal weyn ku bixisay. dhanka kale xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa bartiisa Facebook kusoo qoray ahlusunna iyo dowladda federaalk Soomaaliya heshiis ka gaareen khilaafkii taagnaa, una mahad celiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo dadaal badan ku bixiyay arrintaasi. waxaan soo dhaweynayaa heshiiska laga gaaray kala aragti duwanaanshihii dowladda federaalk iyo ahlusunna waljamaaca ee dhismaha galmudug. waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo waqti badan geliyay sidii arrintaani loo xalin lahaa. waxaa sidoo kale uu mahad celiyay wasiirka arrimaha gudaha, xildhibaanadii iyo ganacsatadii ka shaqeeyay inuu miro dhalo qodobo heshiiska maanta la gaaray, ayuu yidhi mahad salaad, oo asigana markii hore kasoo jeeday halkaasi, islamarkaasina qaabkay dowladda wax u waday si weyn u dhaliilsanay. dhinaca kale xisbiga madasha qaran oo hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa digniin culus u soo diray wasiirada uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. madasha xisbiyada qaran ayaa ka hor imaanaya hindisa sharciyeedka hay-adaha aan dowliga ahayn 2019 ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta, islamarkaana ay maanta ka doodayaan wasiirada xukuumadda federaalk Soomaaliya oo hogaaminaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay macnaha ugu weyn ee ku duugan xeerka uu yahay in ay wasiirka u suuro gasho go'aanka gaarista meesha iyo sifada hay-adaha deeqaha bixiya u qaybinayaan kaalmooyinka dibadda ay ka yimaadaan, iyadoo hay-adda shaqadeeda aan lagu qancin lagala noqon doono ogolaasho go'aanka wasiirkuna yahay kama dambays. madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in hindisa sharciyeedkan ay hay-adaha aan dowliga ahayn uu caqabad ku noqon doono heshiisyadii lala galay Somaliland oo dhigaya in aan la siyaasadeyn arrimaha gargaarka bini'aadanimada iyo sharciyada horumarinta, iyagoo laga dheeraanayo soo saaristii go'aamo ama sharciyo abuuri kara kala fogaansho ama hoos u dhac ku yimaada kalsoonidii labada dhinac. sidoo kalena madaxda ayaa xustay in ujeedada heshiisyada laga lahaa ay ahayd in la abuuro jawi sahli kara wadahadal micno leh oo dhex mara xukuumadda dhexe iyo Somaliland sida loogu midho dhaliyo midnimada la isla garto, ayaa la yidhi. madasha xisbiyada qaran ayaa xukuumadda talada haysa u sheegay inay waajib ku tahay sii ambaqaadidii ballamihii hore ee loo galay iyo dadaaladii ku aadanaa soo celinta midnimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed, ee lagana taxadiro tallaabo kasta oo xagal daacin karta dadaaladii hore ee u socday si loo baajiyo dhaawaca ku yimaada dhab u heshiisiin dhex marta ummadda Soomaaliyeed iyo jahwareerkaasi siyaasadeed iyo cadaalad la'aanta ku kala irdheeyeen, ayaa la yidhi, loona xaqiijiyo walaaltinimadii aan ku dhisnayn handadaad iyo cagajugleyn siyaasadeed ama sharci, ayaa la yidhi. haddaba madaxdii xisbiyada qaran oo arrintaas kaga digaya ayaa arrintaasi yidhi. dhinaca kale haddii aan qodobka ugu dambeeyo aan raaciyo daawadayaal, Mareykanka oo si weyn u taageeray heshiiskii ahlusunna waljamaaca ee saakay. safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto oo ka mid ah xubnihii beesha caalamka ayaa waday dadaaladii wadahadallada ahlusunna waljamaaca iyo dowladda dhexe ay soo dhaweeyeen heshiiskii ay wada gaareen dowladda Soomaaliya iyo hogaamiyaasha ahlusunna waljamaaca. Donald Yamamoto oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay mar kasta ka go'an tahay inay taageerto heshiisyada noocan oo kale ah, islamarkaana ay hubiso hirgelintooda si loo gaaro nabad iyo xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha Soomaaliya. Mareykanka wuxuu bogaadinayaa gorgortamayaasha howsha adag qabtay si loo gaaro heshiiska loo wada dhan yahay, kaasi oo sugaya xasilooni iyo barwaaqa dowlad goboleedka Galmudug oo saf muhiim u ah ooga jirta dadaalkeena isku jirka ah ee laguna dagaalamayo al-shabaab, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. Donald Yamamoto ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tanaasulka adag oo ay sameeyeen dowladda dhexe iyo ahlusunna waljamaaca oo ku saabsan qaabka doorashooyinka iyo qaybsiga xubnaha baarlamaanka, isagoo ugu baaqay labada dhinac inay hirgeliyaan heshiiskaasi.
waxaan aqoonsanahay oo yidhi dadaalada dib u heshiisiinta ee ka jirto dalka oo dhan, iyadoo kale tanaasulka adag ee ay sameeyeen labada dhinac ee ku saabsan qaabka doorashada iyo qaybinka wakiilnimada baarlamaanka, waxaana dhiirigelinaya oo yidhi hirgelinta heshiiska, ayuu yidhi. Donald Yamuto ayaa ugu dambeyntii xusay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay fududeyso gargaarka bini'aadanimada, kaalmada amniga iyo horumarka dhaqaale ee dadka reer Galmudug, maadaama uu sheegay in gobolkaasi muhiim u yahay mustaqbalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii, Donald Yamuto ayaa sheegay in Galmudug uu yahay gobol muhiim u ah horumarka mustaqbalka Soomaaliyeed. Safaaradda Mareykanka waxaa ka go'an fududeynta gargaarka bini'aadanimada, kaalmada amniga iyo horumarka dhaqaale ee dadka reer Galmudug, ayuu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa. Hadalkan ka soo baxay Donald Yamuto ayaa kusoo aadaya xilli maanta ay dowladda Soomaaliya iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca ay heshiis ka gaareen khilaafkii ka taagnaa doorashadii Galmudug, iyadoo Ahlu Sunna loo ogolaaday inay baarlamaanka ka hesho 20 ka tirsan xildhibaanada Galmudug si halkaas heshiis waara loo gaaro, taasi oo lagu sheegay inay tahay guul u soo hoyatay, maadaama muddooyinka u dambeysay ee halkaas ka jirtay khilaafo xooggan, isla markaasina malaayiin doolar lagu bixiyay. Halkaan naga daawanaysaa waa Cali Sida Media, fadlan nala joog daawo qodobada xiga.